Soomaaliya inuu banaanka aan baxan garab surmaa ciidamadiyo magaalada Subuut wali in la wareegay ciidamada daraawishta koonfur galbeed Soomaaliya nuurow wali in ka baaqanay ciidamada kala duwan ee jooga magaalada ee aan ahayn daraawishta dawladda koonfur galbeed iyo hay'adaha amniga koonfur galbeed inay si degdeg ah isu dhiibaan qoryahana ay dhulka u dhigaan xariyahoodana dib ugu laabtaan cid kasta oo aan ahayn ciidamada daraawishta koonfur galbeed Soomaaliya qori ku haysata magaalada dagaalamaysa waa la dagaalamaya waa la qabanaya qof walbo isdhiibo qoryihiisa soo wareejina ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya si gobonimo leh sharafnimo oo la dhaqmi doonaan waxaan mar kale ku celinaynaa ciidamada magaalada ka dagaalamaya huwanta afbalaar iyo salbalaar inay si degdeg ah isu dhiibaan ciidamada daraawishta koonfur galbeed Soomaaliya isugu dhiibaan ciidamada daraawishta koonfur galbeed Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa cid walbo si wanaagsan oo gobonimo leh sharaf leh isu soo dhiibta inay si wanaagsan oo la dhaqmaan qof walbo oo diida inuu hoggaansamo awaamirta dawladda koonfur galbeedna inay tallaabo degdeg ka qaadaan iyada ma asanta ugaas xasan dawladda koonfur galbeed Soomaaliya shacabka magaalada Baydhabo waliba markaasay aan ka baaqasay inuu feegignaadaan isla markaasna si weyn handhawaayaan oo la shaqeeyaan ciidamada booliska gaarka dawladda koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan reer Baydhabo markale wali lana habba banaanka xura ee tingeeka madigin korongaada arinyooginga ha galeen adowgii walsiin ku dulqaadi banaanka aan baalana